السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي هذا اليوتيوب بقول كيف بقول أدمنيدين وذا السلام يا وولاش إنه إذا كذا إيمان هسه حمد الناتشرالز حمد شكري ما شاء الله وحاميس كينو صارن essential oils كيني مداوات كيني الدبيعي لها ما شاء الله كوبكayga shaahan ay kula soo dhawaada waa aniseeds ma sha Allah isaguna caafimaad aad u badan buu leeyahay shaahaas weeyaan halkaa ku jira saas u eg marka ma sha Allah waxaan leeyahay shaah idinkuna soo qaata halka waxaad ka dheehanaysaan oo kale saliidaydii facial oil ما شاء الله كون إنه essential oils كني إن بدنا إنه كهوى هل تشرني مركه حتى إنه كسر إنه عاوي فائدة ده الضرة إن شاء الله يعني هرت عاوم يرى ماركتي مقعاوية ونبوجي كسر بوري بوجان سرويل كبرناي مركه سبحان الله والله يا بس السليدة هاي رير وهذا ماركتي آد تذكر sida dabeeciga wax ku daaweeyay ama maaragtay xarumo xataa dhaqaadiir camal ay u furteen xarumo maaragtay sida cusbitaalada hadda u furan yihiin ba waxaa jirta xarumo furan hadeerto oo dadka lagu daaweynayo kuwaan essential oils ama saliidaha muhiimka ah af Soomaali ay soo galay because kelmadda essential waa maxay waa important camal bay u dhigantaa wax muhiim ah saliidana waa saliid marka saliidaha muhiimka waxyaalo yaryar haddaan ka magacdhabo ama ka magacaabo waxaa la yidhi ay sirifalkiska ayay u fiican yihiin qaar saliidahan ka mid yihiin waxay kaloo u fiican yihiin adni aggression ama aggressiveka iyo aggressionka waxa weeyaan waa xanaaqa faraha badan aging agitationna I believe waxa weeyaan agitationkuna waa ma aragtay qofku environmentiga markaa timaadid aadan familiar ku ahayn aadan garanaynin inaa ma aragtay waad agitate garaynaysaa ma aragtay baala daymoon camal waad baqaysaa meelaad ka baqaysid oo kale marka anxiety camal baa waxay bay kugu noqonaysaa allergy sida allergiga oo kale xasaasiyadda anemiyadu waa maxay dhiig la-aanta calaashaan waxaa jirta iyaduna way la isugu daaweeyo qaar haddaan halkaa cudurradaan magac dhibayay aan ku joojiyo cudurradaan magacaabayay calashaan qaarna inhale baa lagu sameynaya waa la ursan qaar waxaa jirta maaragtay cuntada lagu darsanayo ama ayagoo ubaxiya oo flower ama ayagoo budaa ama ayagoo xataa saliidaa waa waxba ku yeelaynin anemia oo dhiig la-aanta angerku waa maxay xanaaq animal biteskuna waa maxay waxaa weeyaan baa la yidhi waxay xawayanku markuu qariino allahumma salli ala muhammad anxiety-gu waa ayadana waxaa weeyaan sida agitationka oo kale kusoo dhowdahay waxaa weeyaan like waa anxiety-gu waa isku buuq isla hadal depression stress miya waxaas camal isoo hoosgalaysaa kelmada af Soomaaliya uma hayno arthritis ama rheumatism اللهم صل على محمد ولي هدان ku socono calaashan pages baa furmaya waa aad bay u fara badan tahay waxa weeye asmaada athletic dadka maaragtay kubadaha ciyaaro dadka oo jimicsiga oo sportska dadkaas ayagoon lugahooda way u fiican tahay back ache ama back pain dhabar xanuun bad breath maxay hay toy allahumma salli ala maxamed afka urah caloosha oo aan si wanaagsan digestion aan samaynin ama aragtay cuntada burburinin haddii la ku roon yahay qarmuunka bad smells bagskuna waxaa weeyaan waxyaalahan haddii la ku roon yahay maxaa la dhahaa beard bag oo kale iyo
Vertebra maxaynu nidhaahnaa boodo kutaan kuwaas way dishaa. Ballyache caloosha calool xanuunka. Blackheads kuna isaguna waxyaalo wajiga kasoo baxa weeyaan sida aniga oo kale. Bleeding marka dhiig uu maaragtay aad dhiigay sidoo kale qofka dhiig ka soconaya bleeding. So maxaa lagu leeyahay dhiig joojin miyaa bleeding gums ilkaha marka ay gums ilkaha maaha waxa weeyaan ciridka ciridku qofka markuu dhiigayo oo kale. Bloating waxa weeye haddii alla kuu rooyahay waa caloosha qofka markay karto qof waan dibray oo kale dibrada bloating. Blood circulation waxa weeyaan circulation blood circulation waxa weeyaan xididadeena shaqayskooda miyaa intaasna qof af Soomaali ku hadlayo af Soomaali si wanaagsan liana waxaan waa terminology marka hayla yaabinina circulation wax Soomaali lagu faslo ma garanayo. Blood waa dhiig circulationna waxa weeyaan systemka uu jirkaagu markuu blood circulation sameynayo dhiigaagu soconaya dhiiggii baa dhaqaaqay. haddaad hadda qubays qaadatid oo saliid ismarisid oo aad allahumma salli calaa maxamed dhaqdhaqaaqda cabaar bloodkaagu wuxuu sameynayaa jirkaagu circulate. haddaa socotid blood circulation jirkaagu wuu soconayaa. marka intaas aan ku daynayaa waa maasha allah tabaarakallah. haddii alla idin roon yahay kaamradayda way ugu fikraysaa. haddii alla idin roon yahay calaashan essential oilska keliya calaashan inta lagu daaweyn karo waa hadda waa few laakiin waa pages buuga maarka intuu leeyahay hadda waa intaan korka waxaan ka xasuusan karo ama maaragtay aan noodka ka diyaarsaday. marka waxaa isdhahaysaa you name it cudur kasta wuu ku jiraa oo waa lagu daaweyn karaa. maxay qaaxo TB maxay hayto dhiig la-aan waaba soo sheegnay amraada dumarka xataa waxaa jira kuwa caanaha maxay caanaha increase ku sameynaya naaska caanaha. hadda kasoo qaadkan oo kale shaahan oo kale hadda waan uga cabayaa waxaan ka rabaa maaragtay inuu hargabka ayuu u fiican yahay immune systemkaaga inuu kor u qaado. waa sida maaragtay allahumma salli calaa maxamed maxaa la dhahaa kuumunta oo kale xawaash duuduubka ama xawaash hilmi mindhaha oo kale weeyaan. intermsharkaas raalli ka ahaada qaylada yar waxbana soo interrupta gareeyayo qolyaha isku fayta balaasay. marka kanaan maraynay allahumma salli calaa maxamed waxa waaye hadda kaan oo kale aniga shaahan hadda pointkii oo caanaha in qaar alaabtan caanaha ay increase ku samayso dumarka caanaha maaragtay raba inuu naaskooda caano badan yeesho oo ilmaha caano badan u helaan. hadda shaahan oo kale geedkan maxaa la dhahaa aniseeds wallahi afkeena kelmad Soomaali kulli ma jirto laakiin wuxuu uma aqaanaan leeyahay laakiin wuxuu u eg yahay xawaash duuduubka wax yar buu ka yar yahay. waa geed aad u udgoon wuxuu leeyahay saliid essential oils wuxuu leeyahay isagoo shaaha wuxuu leeyahay aniga waxyaalo badan baan ku sameeyaa buskutkan ku sameeyaa shaah ahaan baan u cabaa waxaan ka sameeyaa unsi. marka maasha allah aad baan u isticmaalaa. waxyaalo kaloo timiraha laga sameeyo waa ku sameeyaa. marka maasha hadda kan oo kale haddaad shaah ay hooyadu ka dhigato wuxuu sameeyaa inuu maaragtay ee caano badan produce garayso caano badan uu sameeyo naaskada ilmuhuna caano badan helo. laakiin anigu hadda hargabka inuu iga difaaco immune systemkayga maaragtay difaacyadaydu ay xoogsadaan baan u cabayaa. biyaha unbaad karkarinaysaa biyaha markaad karkarisid waad ku shubanaysaa koobkan oo kale aad ku shubanaysaa ama koob kasta muhiim aha kan oo kale oo saa u samaysan oo saa weegana haysatid laakiin waa inaad un maaragtay shay dhalaayo wanaagsan oo aad ku dabooli kartid oo markasta shaygaad wax ku cabtid.
aad shaahad ku cabtid oo kale inaad ku daboolatid cabaar iyo 5 daqiiqo biyo kululaa iyo kani isla yaaliin malqacad camal tak beloy bayr markaas bismillah doranaysaa marka waa saas marka hadii la idin qoyahay caawa waa essential oil keena iyo remedy miyal daha remedygeena mudaawaadkeena marka ma sha Allah hadii aad jeceshahay inaad essential oilska wax ka barato ama aad jeceshahay inaad isku daaweyso oo waxyaalaha perfume kale ku dhibaan oo ay ku dhibaan ma aragtay daawooyinka aadan jeclayn ma aragtay ina markasta kaniiniya waxa isticmaasho hadda anigu gurigayga xabad kaniini lagama helayo 7 sano u dambeysay hadda marka Afrika aadan waa kaniina madax waan iska sii qaadanay laakiin 7 sano yani last 10 years 10 sano u dambeeyay gurigayga xabad Tylenol marmar laga yaabo ilmaha inuu dhakhtarku igu soo qoro aan xataa siinin ma aan soo gadin naftaydana Tylenol aan u raadsaday lacag kagama bixinin haday meel xanuunto maxaan sameeyaa ama xabad sawdo ama saliidahan mid kamid ah bambuugayga aadaa wuxuu leeyahay buugu meel oo ay ku teedsan yihiin cudurrada dhan baa ku qoran sida hadda intii yareedan ka soo qaatay oo kale cudurrada dhan baa ku qoran marka cudurrada dhan ku qoran yihiin waa tagaa sidii aniga leeyahay madax xanuun haduu yahay dhag headache hadii calooshii xanuunayso ya calooshii stomach bloating kiiba hayo calooshii karsan ma laab jeex ma ay reflux baa ugu kacdo waxas alxamdulillah ma qabo laakiin waxaas haday calooshii ma aragtay calooshii intaas oo wax ay qabtaan moogta marka aduu meesha sana baara essential oilka ii tilmaanto buugu aan qaataa ama waan ismarin ama waan ursan hadda kaba soo qaad waan daalay maanta dhan ama noloshad ku soo daalaysa ilma kale ceeli shaqaad iskuul guriga kaliya xaaladuhu bariga dhixiya bariga shisheeye isla noqonayaan marka waxaad u baahan tahay inaaban maaragtay madaxa isku yara xooga cuslaaday oo daal badan baa jira dhag waxaad raadinaysaa mideeba u fudud maaragtay mideeba u fiican daalka iyo maaragtay body stress waa inaad eegtaa marka hadda tan oo kale tan waa maxay waa yaleen weeyaan aad baan u jeclahay marka yaleenku waxay leedahay deganaanan inaba caadi ahayn haddaad showerkaaga ku shubatid marar horena waan ka hadlay dhibco yar ku dardas showerkaaga ama reera weyba scrub ama body scrub aad ka samaysid ama sugar scrub ma aragtay ama salt scrub wuxuun aad ka samaysid waxay noqonaysaa markaas oo aad suuliga la gashid oo ku qubaysatid ismarmarisid urisid kaliya ayada biyo kulul markay airka isla baxaan isku circulate isla sameeyaan airka iyo hawadaas dhexe maaragtay jirkaaga dhan wuu furfurmayaa waxaad noqonaysaa qof oo energy haysta qof oo firfircoon maaragtay madaxuu ku dagayaa daalkii ku hayay waa kaa tagayaa adigoo aan kaniin qaadanin adigoo aan coffee cabin adigoo maaragtay shaaha cabin adigoo aan caffeine isku daldalin leana coffeega iyo ma aragtay markay marmar aad shaqaysan kar weydo oo daalanta wax badan ku yaalaan dadku waxa laga yaabaa inay coffee ay raadiyaan qaxwe ama bun oo isaguna hadhow caffeine waxaad noqonaysaa addicted baad ku noqonaysaa wad la qabsanaysaa jirkaagu so waxaa ka fiican hadda kusaan oo kale marka saasan la wadaagan saasan sameeyaa intan coffee aad laha yes sometimes coffee waan cabaa aroortii oo kale laakiin maalinkii wax kala fiiriya especially haddaan waxaan una dareemo saliidahan waan ka agdhawaadaa Soomaaliya waxaan ugu dhacday qisiyada idinla sheekeeyay waxaa jirta wadankii hooyo kaneeco aan inaba caadi ahayn oo saas xun bay noqonaysaa ya waxay noqonaysaa sida shinida oo kale marka sidii shinida noogu soo shiday wayna cuntay marka wadankii hooyo tagnay waxaan sameynay marka waan buugan fiirinay aniga gabadheeda buugan fiirinay
buugga markaan u noqonay oo waxaa maskiro lagu sameeyo lagu dilo ama maskiro lagaga hortago ama maskiro rebelka loo isticmaalo waxyaalahan maaragtay maskirada korka la iska mar sidii saliidoo kale camal la isu marinayo oo kale aan raadinay marka wuxuu noo tilmaamay chamomile اللهم صل على محمد magaceedi baa iga maqan halkaa meelaha hadda iyo mataalan malaynayaa lemongrass ilaahay baa ugu aadiyay waatana dhalada lemongrass rosemary baa malaynaya laakiin waa lemongrass waa haystaa marka lemongrass iyo chamomile cedarwood intaasuu noo tilmaamay inaan raadino marka waxaan haystay cedarwood iyo lemongrasstana haafa laakiin dhibco yaryar baa markasta u baahan tahay iyo badle spray baa markaa u baahan tahay marka waxaa xagga dhulka ay ka dhacday inaanan haysanin badle sprayga saa wax loogu buufbuufiyo hadda miiskan oo kale haddaan nadiifinaysa caagada lagu buufiyo oo kale waan weynay ma aanan haysan annagana ma sii qaadanin shay marka oo ii spray garaysmana ma aan haynin marka suuqaan aaday the good thing was suuqaan aaday waxaan sameeyey oo supermarket baan tagay mid bahalahan windowska oo windowga lagu kulin gareeyo daaqadaha aan soo iibsanay waan ka daadinay suntii wax lagu kulin gareyn jiray ayadii waan dhaqanay waxaan isku hagaagsanay wixii kaneecada lagu dilayay dee bilay beer daaqadaha iskaga buufi kaneecadii ku buufi annaga jirkayagii xataa ku buufi maasha allah anaga waxaan kasoo saarnay ma aragtay dee daawo caadi aan gurigayga ku samaysanay marka maasha allah waxaa jirta sun kaloo guryaha lagu buufiyo kaneecada dadka iskaga celiyaan waxba kuma taraysan laakiin kaneecadii calaa waxba kaama celinayso lacag baad kasoo bixisay adigiina waad ku sumoonaysaa soomaaliyana taa la ogowiya carabaha af carabi baa ku qorqoran marka ilaahay ha u yasiro inteeroo side effect baa laga qaadaya dadka qaar way waalaysaa madax xanuun baa dadka ku dhacaya sankay ka galaysaa hadda ka hor dad baa ku dhintay baaba lalahaaba marka anigu maba isku daalin mana soo gadanin waxaa dadka ii sheegi jiray iyo mid kaloo la geliyo iyadana meesha outletka la geliyo fiishta taasna way jirtay marka wixii oo dhan maba aanan kiniinkii tyranolkii oo maraykan sameeyo ama wadamo lagu kalsoon yahay aan ka baqayaaba inuu side effect igu sameeyo maxaad u malaysaa marka annagaa samaysanay alxamdulilah marka haddaad qalabkan baratid oo aniga businesska ma raadsado alxamdulilah waxaan bilaabay inaan dadka la sheer gareeyo markii aan saa u qaatayba wax yar ka bacdi youtube-kayga hore iga xirmay insha allah alxamdulilah haddana waan soo celcelinayaa inkastoo aan hadda youtube-kaygan sheekooyin kala dhex galgeliyo oo aysan toos u soconin kuwani insha allah marka left and right buu ahaanaya biidni illah waxyaalo badan baan youtube-kan ku sheer garaynaynaa kii hore laakiin only waxaan kaga hadli jiray waxa maaragtay naturalka iyo dabeeciga iyo mindaawaadka bes marka kaas waa khalaas markaan afrika aada tegay iminka waxaan idin leeyahay caawa iyo la sheeritaan wanaagsan waa iska sheeko generaala caawa marka waxaan leeyahay dhegaysasho wanaagsan subscribe haddii aad su-aal qabtid waad comment garayn kartaa linki ahaan email ahaan waad igu soo diri kartaan share talo tusaale waa idinka dhankiina anigana dadaalka idinkana ducada waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subscribe share wassalaamu calaykum